ma ogtahay daawade in caanaha jiirku ay yihiin kuwa ugu qaalisan dunidan aynu saarannahay? mase ogtahay in halkii litir oo caanaha jiirka ah ay dunida ka joogaan qiimo kor u dhaafaya $22,000 oo dollarka Maraykanka ah? like saar muuqaalka siina sheer garee si aan u gaarno saaxiibo adiga oo kala ah. haddii guriga jiir kugu wareeriyey muuqaalkani waa kaad furaha faqriga ku tuuri lahayd saaxiib. guud ahaan jiirku waa noole saynisyahanadu ku qeexan inuu yahay mid ay aad isu shabahaan aadamaha marka la joogo habsamayska unugyada. inta badan tijaabooyinka caafimaad waxaa la mariyaa jiirka inta aan loo gudbin aadamaha. jaadka ama nooca caadi ahaan maray tijaabada caafimaad ee tayada caanihiisuna dunida ay deemanka ka yihiin waxaa loo yaqaan maskalas. waa nooc yaryar laga wareegsan leh sayn dherarkeedu jirka leegyahay iyo heer taran oo sarreeya. waana nooca inta badan laga helo geeska Afrika. in ka badan 22,000 ayaa la kala siistaa halka litir oo caanihiisa ah. qiimaha caanahan jiirka waxaa kor u qaadaya qiimaha jaadka jiirka ama nooca jiirka oo qaali ah iyo habka loo liso oo u baahan taxaddar iyo aqoon dheeraad ah, iyadoo kharashkuna kor u kacay sanadihii u dambeeyey ilaa heer uu gaaray in ka badan $22,000 oo dollar litirkiiba. saynisyahanadu waxay qeexeen in caanahan ay ku jiraan macdano la mid ah kuwa ku jira caanaha naaska hooyada, gaar ahaan maadada lactoferrin oo ah maado ku jirta caanahan ayay warshadaha daawooyinku aad u tixgeliyaan. cilmibaarayaashuna waxay daaha ka qaadeen awooddeeda la dagaalanka caabuqyada, daaweynta xaaladaha bararka iyo xitaa wax ka qabashada kansarka qaarkiis. waxayna 3 jibbaar ka nafaqo badan yihiin caanaha lo'da. halkan uga wac saaxiibaad is leedahay ganacsigani waa anfacaya. magacaygu waa Saan Maxamed Cartan, halkanina waa Cartan Times, madal lagu soo bandhigo hal abuurka iyo dhiirigelinta bulshadeenna afkaar dhay ah oo lagu dhisay akhlaaqda iyo